dowladda Soomaaliya cid haba yaraatee hor istaagi karta male marka qofka dhahaaya aniga teendhadiyaan rabaa ujeedkiisu waxa waaye xildhibaan uu raadaa teendha cid dambe u laaba karta ma jirta maxaa yeelay teendhadii dadka way naceen xildhibaankoodii ma dooran karaan marka xataa magaalada la maraayo ninka sarwaalka gaabanna inuu yahay khawaarijti weli waxaa nagu dambeeya carqaladda tafgaabta oo hadee wadamo oo dad ma taqaanaa weli aan naga naxayn ay gadaal ka fadhiyaan argagixisada caalamiga ay gadaal ka fadhiyaan Salaad Cali Jeelle marka hore ku soo dhawow RTN aad iyo aad aan ugu dhawahay RTN waxa waaye inaad ka timaadeen Muqdisho aad aan ugu faraxsanahay oo Jabuuti igu wareysataan welcome waa idin leeyahay soo dhawaada aad buu mahadsan tahay halkan waxa u joognaa 25 sano kadib 25 sano kadib dib u dhiska dawladda Soomaaliyeed oo ku meel gaar ahayd maanta dooda halkan ka dhacday aan dib ku celiyo bal qaranjabkii kadib sidoo ku yimid in dib loo aasaaso jamhuuriyadda saddexaad aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa inaad su'aashaasi weydiiso runtii adigu markaas ma dhalanaan isleeyahay runtii waxay ka timiday aasaaskaas jamhuuriyadda saddexaad walaalaheen reer Jabuuti oo markaas noo damqaday oo isyiiri walaalihiin markay dhulka ku dhaceen oo kuraastoodii kursigoori General Assembly-gii qaramada midoobay markii laga waayay oo kursigeennii oo naqda kursi iska faaruqa ayay markaasi aad u ciishoodeen markaasoo mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna markii la doortay oo uu cusbay ayuu arintaas ka dhiidhiyay runtii marka damqashada reer Jabuuti ayaa fursadaas u abuurtay ummadda Soomaaliyeed heer nooce ayuu soo maray shirka carta ka hor inta Soomaalida Jabuuti la isugu keenin maxaa caqabadaha oo waqtigaas aad ka xasuusataa runtii wuxuu ahaa shirkaasi waxaa jiray 10 sano muddo ah markii ay dawladdeennii burburtay warlordkii Muqdishona jabhadihiina ay ku fashilmeen inay buuxiyaan kursigii siyaad barra ka cararay inay buuxiyaan markii ay ku guuleyso waayaanoo civil war iyo warlordism iyo meelo kala xirxirasho iyo isu socod la'aan markii uu dhacay muddo 10 sano ah ayaa markaas waxaa abuurmay civil society NGO dadkii ka shaqay jiray arrimaha gargaarka ururada bulshada dadkii dawladnimada markii hore laga ridayo la dhihi jiray haraadigii siyaad barre isla markaasna dalka markii hore hogaaminaya lana riday oo weli dalka ku dambeeyay qaarna dibadda oo ka yimiday ayaa markaas dawladnimadii markii dawlad la'aantii markii la dhibsaday dadkaasaa shirar qabtay shirarkaasoo gobolada iyo magaalo madaxdaba ka dhacay marka abaabul shacab ayaa la dhihi karaa markii dareenkaas oo jiriyey ayaa waxaa ku aadiyey walaalaheen reer Jabuuti marka inay ka faa'iideeyaan dadkaas dawladnimada raba oo shacabka ma taqaanaa u badnaa oo indheer garadkii amba aqoon-yahanadii amba dadkii markaas Soomaalinimadu weli ay ku dambayso warlordismka dhibaatadooda iyo dawlad la'aado ay dhibaysay ayaa markaas ka faa'iideeyay oo markaas aqbalay soo jeedintii walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle markii uu ku dhawaaqay oo uga dhawaaqay September xilligaas la doortay oo ku aadaneed 2000 iyo waxaan u maleeyahay 1999 aan u maleeyahay weli sanadkaas 2000 markii aakhirkeedii bishii September 2009
waxay ahaaday ayuu meeshaas ka qayb galay asoo curduna isla markaasna halkaasuu September uga dhawaaqay 2000 bishii shanaadna labadeedina shirka ayaa halkan ka furmay marka waxay ahayd runtii taariikh markaas isagoo dhalinyaro ah oo caaboon oo u qaadan waayay inay ummadda Soomaaliyeed ay markaa kursigoodu bannaanaado dawlad la'aan ay ahaato marka marxaladahaas asigoo ka faa'iideeyay shacabka Soomaaliyeed oo dawlad la'aadu dhibtay ayuu ku aadiyay waana lagu guuleystay runtii waxaana ka soo qayb galay civil society-gii haraadigii Siyaad Barre iyo oda dhaqameedyadii culumaa u diinkii dadkaasaa ka soo qayb galay halkii warlordka dawlad laga dhisi waayana waa laga weecdo waa laga leexdo waxaa la yiri kuwan dawlad ma rabaane iyagoon ogolayn dawladda dadka ogol ha loo dhiso Soomaaliduna markaas suugaanleyda hadda laga hadlayay aqoon-yahankii culumaa u diinkii oda dhaqameedkii ururadii bulshada dadkaasoo dhan iyo dadkii Siyaad Barre ka heray oo markaas mataqaanaa ku milmay beelahooda intaasaa runtii la wacay wayna aqbaleen saasaana dawladdii lagu dhisay waayahay 25 sano kadib maanta meesha la taagaya maxaa kaaga baxay maanta runtii hadee waxaanba ku naaloo haynaa guushii laga gaaray Carta markii lagu dhammaystiray Embagati kadib waxaa meesha soo gashay marka inay dawladda Soomaaliya hana qaado oo markaasi caqabada weli waa jiraanoo hadda qoladii khawaarijta oo haddana mataqaanaan runtii inaan rabo ummadda Soomaaliyeed aan ugu baaqaya inay fahmeen hadda waxaan khawaarijtii markay ummadda Soomaaliyeed ay culumadii ku dhawaaqda haddana inaan u sii fasirnaan rabnaaho waxaan u bixina tafgaab marka tafgaabtaasi waxaad garan kartaa sarwaalkeedaad ku garan kartaa calaamadda iyagaa wato inaad marka fahmi weydo al-shabaab iyo tafgaabta iyo waxaas ay dadka kaaga darmaan waxaan rabaa inaan anoo tan ka faa'iideysanayo inaan iraahdo marka hadda weli waxaa nagu dambeeya carqaladda tafgaabta oo hadee wadamo oo dad mataqaanaa weli aan naga naxayn ay gadaal ka fadhiyaan argagixisada caalamiga ay gadaal ka fadhiyaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa anoo tan ka faa'iideysanayo inay sarwaalka fiiriyaan sarwaalka halkaan uga joogiya waad garan kartiin marka tafgaabaa la yiraahdaa inay fahmaan khawaarijta waxaa ah ninka tafgaabta oo sarwaalka gaaban leh inay fahmaana la rabaa war adigu khawaarijta la sheegaa waa adigoo tafkaas sarwaalka gaabanaan kugu aqaan inay yiraahiina la rabaa oo ay soo qabtaan ninkaas tafgaabka kaasaa al-shabaaba kaasaa argagixisa marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan marka xataa magaalada la marayo ninka sarwaalka gaabanna inuu yahay khawaarijti marka hadda marka waxay maraysaa inay qof iyo cod dawladda Soomaaliya ay marka ururo waad aragtaa Muqdisho hadaad joogteen in ururo la sameeyay la diiwaan geliyay axzaab ay u gudbayaan dadku ay mataqaanaa rabaan inay la diiwaan geliyo haayo oo la diiwaan gelinayo oo shacabku markaas ay soo doortaan hogaankooda haday taa heer qaran iyo haday taa heer gobol iyo heer deegaanba marka dawladda Soomaaliya waa ogtahay waa heer qaran heer goboleed iyo heer deegaan marka hadii degmada la doorto gobolka la doorto qaranka la doorto marka dawladda Soomaaliya cid haba yaraatee hor istaagi karta marka male maxaa yeelay shacabki ciday raali ka yihiin oo ay doorteen oo ay taageersan yihiin ayaa soo baxaya markaasna hadee waxaa dhammaystirmaayo oo meesha ka baxaya argagixisadu inay dalka joogto markaasna waa laga adkaa dalka dibadiisa inay u cararaan ay ku qasban yihiin marka meel wanaagsan ay maray oo dhammaystira marka aad iyo aadaan u faraxsanahay waadna ogtiina de Muqdisho aad ka timideene shalay iyo maanta idinkaaba iiga xidoogaashan oo maanta kulley waxaan u maleeyahay inaad makrofankiina meel kasta dhiga kartiin oo aad markaas dhihi kartiin
jidka dhexdiisa aad waraysi ku qaadi kartiin idinkoon ka biqayn inay mataqaanaa qaraxyo iyo dhibaato timaado marka aad iyo aadaan leenahay marka Soomaaliya waa guuleysatay halkaas in laga sii wado oo lagu mintido oo mirihii geedka cagaaray la sii waraabiyo intaasaan aniga ugu baaqa ummadda Soomaaliyeed runtii haddana madaxda dalka way imaan doontaa hadee meeshii oo carto laga dhigsay dhismo wanaagsan oo akadeemiga waa tegi doontiin marka taariikhda Soomaalida ay ku hardhayan tahay marka waxay noqon doontaa meel aan ku xuseysano wixii aan soo marnay oo aan maalin walba shalay Soomaaliya say aheeday iyo guusha aan gaaranay meeshan ka tix raaci lahayd taas wax shakiyaba kuma jiraan maxaa yeelay markii deegaanadu is doortaan oo waad ogtihiin November 30 in Muqdisho ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda markii ay dhacdana hadda qofkaas la doortay ninka qofkii mathalaya qof la doortay naqeemaahina cid oo la soo magacaabay ma u tali kartaba dadku markay wax doortaan oo golo deegaan doortaan waxay ku qasban yihiin cidda qaranka ka imaanaya oo iyaga mathalaysana inay siday iyagu ku yimideen ay ku timaado marka shaki kuma jiriyo teendha cid dambe u laaba karta ma jirta maxaa yeelay teendhadii dadka way naceen xildhibaankoodii ma dooran karaan kulaac badanaa laga muujinaya doorashadan dad badan waxay isleeyihiin talow ma dhici doontaa mise extension oo samaysan doona xashan sheekh dad iyagu danahooda khaaska kursigooda ambishinkooda qof daba taagan waaye dadka danta guud ka fikiraya oo raba inay mataqaanaa ay iyagu Soomaaliya badbaado iyo markaa qofku interestkiisa iyo waxa loo yaqaano ambishinka oo haayo oo adigu waxbaad naqee ama madaxweynaad naqee qof isle iyo qof shacabka oo raba inay dawlad ay doortaan oo iyagu u codeeyaan raba hadda labadaas marka inay kala adkaahayaan waa u jeedaa shacabka taladiisa adkaanaysa mar walba nidaamka ku sheega systemka dawliga systemka cid kasta asaa ka adag mar haddii nidaam uu ku dhisan yahay qof iyo shakhsiyad waxa kama bedeli karaan dalku barlamaan uu leeyahay xukuumad uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay dawlad goboleed uu leeyahay wuxuu leeyahay degmooyin dhisan uu leeyahay marka waxaas aad u jeedo systemkaas saas u dhisan majority-giisu inay ka qayb galaan ay rabaan siyaasadda inay wax doortaan ay rabaan marka qofka dhahaya aniga teendhadiyaan rabaa ujeedkiisu waxa waaye xildhibaan uu raadaa oo wuxuu leeyahay aniga xildhibaanka sida aan ku helayo waa teendhada war aniguna waa rabaa maxaa noo dhaxeeya waaye marka dadku hana doorto marka waa kala sharaf badan yihiin waana kala karaamo badan yihiin inaad adigu aad dadka qasabtid iyo inay dadku lagu tartamo laba lees garab dhigi kara ma marka hadda dadku way bislaadeen waxay rabaan inay ka qayb galaan oo ay wax doortaan amba iyaga la doorto marka taas aad dadka dilaysa shakhsiyaadka ambishin kale oo iyagu gaar inay wax u ceshadaan rabaan halkaasay ku dhimaayaan waxay ugu dhimaayaan dadka rabitaankiisa adila aad u maasantahay waqtigaaga waa kaaga mahadcelinayna mustaqbal wanaagsan u samee ubadkaaga oo geyso Cambridge International School oo bixiyo waxbarasho tayo leh oo caalami ah primary iyo secondary. The simplest feature of organic compound is alkanes. So one of the organic compounds we have alkanes. Cambridge International School waxa uu bixiyaa manhajka UK ee IGCSE oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay una diyaarinayo ardayda inay galaan jaamacadaha heerka sare ee adduunka iyo mustaqbal wanaagsan. Cambridge International School waxa uu sahlayaa ardayda in si fudud ay ugu gudbaan O level iyo A level examka. Cambridge International School qaybtiisa manhajka Canadianka
waxa uu ardayda u diyaarinayaa inay galaan jaamacadaha Kanada iyo Ameerika. sidoo kale xifdinta quraanka, caqiidada iyo luqadda carabiga ayaa ardayda lagu barbaarinayaa. Cambridge International School online meel kastoo adduunka aad ka joogto duruusta waad ka qaadan kartaa. Cambridge International School waxa uu leeyahay garoomo ciyaaro iyo jirdhiska oo qayb ka ah barbaarinta ubadka. Cambridge International School waxa uu ku sameynayaa qiimo dhibis 50%. Cambridge International School waxa uu ku yaalaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Kaxda, qiimaha nolosha iyo kirada guryaha waa raqiis. 5 qol oo sar ah waxaad ku helaysaa wax ka yar 200 bishii. fadlan naga soo wac WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda.